gudoomiyahan cusub oo lagu magacaabo Maxamed Ismaaciil Cilmi Atore ayaa la doortay 5 bishan aynu ku jirno June 2010 iyadoo ay doorteen jaaliyadaha Soomaalida ku nool dalkan. Haddaba Maxamed Atore ayaa ololahani soo bilaabay 14 March kadib markii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu sheegay in gudoomiye jaaliyadeed loo baahan yahay. waxa taariikhdu markii ay ahayd 14 bishii March la soo dhaafay aan u istaagay musharaxnimada gudoominimada jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK waxa taasi ay ugu dhalisay kadib markaan arkay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ay u baahan tahay ummad midaysan oo unity ah lehna hal umbrella oo diaspora. shantii bishii lixaad waxa la doortay dhammaan gudiyada Soomaaliyeed ee UK shirweyne isugu yimaadeen in aanu anigu ahay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK. Maxamed Ismaaciil ayaa ka codsaday dhammaan jaaliyadaha inuu la kulmo isla markaana u bandhigo inuu yahay murashaxa jaaliyadda. Haddaba jaaliyadihii uu la kulmay bishii March iyo April ayaa waxa qaarkood hadaladooda ka mid ahaa. anigoo ku hadlaya wafdigan Digli Mirifle aad marti qaadeen magaciisa go'aanka ugu dambeeyay waxa idin siin doona odayga beesha ayaa idin siin doona idinku soo dhaweyn idinku wareejin doona. waxaadna weydiisteen waa idinka qaanay haddii aad soo wada soconayay ahaanin markii wax la gaar kala dhuumisho in la kala aro yay daakataas haday dhacdan hadee waan naqaanaa baasha loo leexnaan waan naqaanaa intan isu nimid ama intiina isu timaadeen aad idinkoo wada socda annagana aad noo yeedheen oo dahdeen warbal aynu waxa weeye meel waxooda wadno horta waa wax wanaagsan waan ku faraxsanahay ayaduna waa qaadanay sidoo ninka walaalkay uu sheegay ani ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay nin oo dhalinyaro ah oo aniga aan la jaan qaadi karo oo la hadli karo si walba uu la sheekeyn karo inuu maanta soo sharxay aad ugu faraxsanahay. annagu wixii walaalaha iyaga ay qaateen waa inaan la qaadanay waanan ku ayadeena wixii ilaa meesha ugu dambeysana waa in la soo taabanayna. 5 June ayay ahayd maalintii lagu dhawaaqay inuu Maxamed Ismaaciil uu noqdo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida UK. waxa haddaba shir ay ku qabteen Hotel Hilton ee bartamaha London gudoomiyihii hore iyo waliba ku-xigeenadiisa Xasan Cilmi Kaarshe ay ku wareejiyeen Abashiq Abu Muthir iyo Ali Boolay oo soo diyaarin doona xafladda caleemasaarka gudoomiyaha cusub mudane Maxamed Ismaaciil Cilmi Atore oo lagu wado in dhawaan lagu qaban doono magaalada London taasoo ay ka soo qayb gali doonaan dhammaan Soomaalida ku nool dalkan Britain. Haddaba umuurtan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli wasiirka jaaliyadaha Soomaalida uu soo magacaabay gudoomiye. sidee bay u arkaan dadka Soomaalida umuurtaasi? waa kan Ambassador Xooshow oo umuurtaasi ka hadlaya. jaaliyadaha faraha badan ee ku nool wadankan Ingiriiska gaar ahaan sida Nigerianka, Ghana, Pakistan iyo Bangladesh iyo Indidaba waxay mar walba iska doortaan gudoomiyaha iyaga matala. sida daraadeed dawladda federaalku waxay ku leedahay inay wadankan u soo magacaawdo safiir ama inay u soo magacaawdo oo u soo dirsato envoy. hase ahaatee wasiirka jaaliyaddu xaq uma laha in uu soo magacaabo gudoomiye jaaliyadeed. waa markii ugu horeysay jaaliyadda Soomaalida ama xubno kamid ah jaaliyadda Soomaalida ay u soo istaagaan jagadan gudoominimo tan iyo markii dawladda federaalka ku meergaarka madaxweynaha uu soo gaaray dalkan Ingiriiskan isla markaana uu ku dhiirigeliyay shacabka Soomaalida ee ku nool dalalkan qurbaha inay helaan gudoomiye jaaliyadeed ayaa horay waxay u lahayn jireen Somali community taasoo arrimahooda ay ku fulisan jireen. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal London.